madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo oo ay weheliyaan si hayaha wasiirka waxbarashada hay'adaha iyo tacliinta sare iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa daahfuray manhajka dugsiyada sare ee dalka oo ay ka faa'iideysan doonaan ardayda Soomaaliyeed ee wax ku barta caasimadda iyo gobolada dalka. Madaxweyne Farmaajo ayaa tilmaamay in dawladdu dadaal badan ku bixisay sare u qaadida tayada waxbarashada, mideynta iyo dhamaystirka manhajka dugsiyada hoose, dhexe iyo sare. waxa uuna guul weyn oo ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan baxda waxbarashada u soo hoyata ku tilmaamay daahfurka manhajkan oo ay diyaarintiisu ku suurta gashay maal, muruq iyo maskax Soomaaliyeed, isla markaana ka qayb qaadanaya kobcinta garaadka iyo maskaxda ubadka Soomaaliyeed si ay uga faa'iideystaan kheyraadka faraha badan ee eebba ku banaystay dalkooda. sanadkii hore markaan halkan nimid waxaan furnay oo aan daahfurnay barnaamijkii dugsiga dhexe, haddana in aan runtii fursadan qaaliga ah aan u yeelanay kulligeen nasiib inaan daahfurno barnaamijka dugsiga sare. runtii waa ilaahay mahadiis, waana runtii waa hawl wasaaradda aad adigu hoggaanka u hayso ay juhdi iyo waqti badan gelisay iyo hay'adaha kale oo idinka caawinayay in aan yeelanno barnaamij midaysan ee waxbarasho laga soo bilaabo dugsi hoose ilaa dugsi sare. runtii waa waxqabadka ee dawladdan ee dhanka waxbarashada oo aan ugu talagalnay carruurteenna inay helaan quality waxbarasho tayeysan si ay ula tartamaan hadda ka hor saan u sheegnay waddamada kale ee dhigooda. manhajka dugsiyada sare ee dalka oo ka kooban 13 maado oo ku diyaarsan afka hooyo, luqadda Carabiga iyo Ingiriiska waa mid ahmiyad gaar ah siinaya dhaqankeena suuban, diinta Islaamka iyo sooyaalka ummadda Soomaaliyeed, waxaana loo diyaariyay hanaan la jaan qaadaya nidaamyada waxbarasho ee casriga ah. madaxweyne haddaan sidaad la socotid oo aan in badan kaaga warbixinay juhdi aad iyo aad aan sahlanayn ayaa hawshan gashay. dad badan ayaa ku howlanaay oo kulligood Soomaali ah. manhajka ku hor yaallo gacan shisheeye kuma jirto. waa 13 buug, waxaa ku soo kordhay maadooyin cusub. waxaa kale oo kuwii hore uga duwan yahay in 3 luqadood manhajka ku qoran yahay. iskoolkii raba inuu ingiriis ku dhigo, ingiriisi buwaagti ayagoo ku qoran ay helaan. hadday rabaan inay af carabi ku dhigaan, iyadoo af carabi ku qoran ay helaan. annaga wasaarad ahaan waxaan dhiirigelinaynaa in af Soomaali lagu dhigo. gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa caasimadda Muqdisho mudane Cumar Maxamuud Maxamed Filish oo maamulkiisu la wareegay iskuulaadkii ay dawladdu hore u maamuleysay ee ku yaalay gobolka ayaa dawladda uga mahad celiyay dadaalada badan ee ay ku bixisay horumarinta waxbarashada dalka. maantay waxaa sharaf weyn noo ah inuu madaxweynaha jamhuuriyadda iyo wasiirka waxbarashada iyo madaxdii waxbarashada bahda waxbarashada dhammaantood ay halkan u joogaan daahfurka manhajka Soomaaliga ah. arrintaas waa arrin farxad leh dhiirigelinaysa guud ahaan ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan bahda waxbarashada. madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo fasalada ku booqday qaar ka mid ah ardayda dugsiga Maxamuud Mire oo maanta manhajkan ku daahfuray ayaa kula dardaarmay inay ku dadaalaan waxbarashada, horumarinta noloshooda kana qayb qaataan dadaalada dawlad dhiska iyo horumarinta dalka ee ay dawladdu wado. Shucayb Maxamed Cali, warbaahinta qaranka, magaalada Muqdisho.